taliye iyo gudoomiyaal intii hadda aan shaqeynay askar badan iyo saraakiil qaadaad gashaan maxkamadda la wadaagna galalkooda maanta ugu horeeyo waxaan ku wareejinaynaa askari kamid ah ciidanka booliiska oo la soo dhigay baraha bulshada asoo qore ku caalinaya qof muwaadin oo mooto bajaaj wata ku caalinaya bisha la soo dhaafay askarigii uu ku jiraan filayaa inuu soo istaago la halkan soo istaago askarigaas waxaan u soo saaraynaa waxay tahay inuu qaladka bulshada uu ka galay inaan adinka idiin sheegno bulshadan u sheegno sharcigana la horgeeyo si aysan u soo laaban in qof muwaadina lagu caaliyo qora dambe intaas waxaa dheer waxaan rabaa in la tixgeliyo dadka muwaadiniinta especially wiilasha mootooyinka wata aad waxa u dhibteen askarta dadka mootooyinka wata oo mootada ku shaqeysta mab mootola la dilay dadka mootada ku shaqeysta waa ka badan yihiin 70 kun oo qof oo Soomaaliya oo muwaadiniina inta ku xeeran ee dhaqaale ka hesha ee ku nool ee wax ka heshaana waa ka badan tahay 1 milyan oo qof ka badan tahay bulshada laf dhabar u yihiin baahidooda cid bari kartaa uma jirto dadka mootooyinka wata waxay badqab u noqdeen dadkii safar aadahayay tahriibka aadahayay badqab u noqdeen ay xal u noqdeen kuwii tuugada hay xal u noqdeen waxaa la idinka rabaa oo la idinka codsanaa inaad tixgelisaan oo aad ilaalisaan si gooniya bajaajlayaasha dadka ka ah bajaajla damba qoray lagu qabtay iyo waa la dil aan la maqlin qofkii qalad gala waa la qabanaa dambigu qalad galay calaqay wadaan shabaabkay qawaarijay wadaan qofkii qaladooda waa la qabanaa laakiin biduuni sababa xabad damba lagu dhufto aan la maqlin xabadda lugta ugu dhufo xataa qalad ugu lugta ugu dhufo oo gacan ugu dhufo oo mootada ka banjari xataa laakiin madaxa kaliya xataa lug ma ahan gacan ma ahan qofka ugu madaxa kaliya uga taala shafku inta hore xataa uga taala madaxa kaliya uga taala caloosha uga taala lug uga taala madaxa uga taala lama yeelaayo qofkii qof dilo dambe si uu dambigu u yaraado maxkamadda xataa waxaan ka codsanayaa dadka aqrabada oo heshiinayo heshiisan kala dhahay in la yareeyo oo si loo xakameeyo si loo sharciga dadka loo horgeeyo intaa kadib waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha maxkamadda